kulankan oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen dhowr arrimood oo qayb ka ah amniga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalada maalmihii u dambeeyay ka soconaya gudaha magaalada Muqdisho. Xildhibaanada oo sheegay inay yihiin guddiga dhalinyarada baarlamaanka ee isbedel doonka ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dhalinyaro baarlamaanka ka tirsan ay u istaageen sidii ay uga doodi lahaayeen nidaamka iyo soo celinta kala dambeyntii dalka Soomaaliya. waxaana ay sheegeen in dhalinyaradan ay yihiin kuwa ka tirsan baarlamaanka iyo aqoon-yahano isla markaana ay soo jeedin doonaan talabixin ku aadan sidii wax looga bedeli lahaa nidaamka hadda ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo sidii la isugu diyaarin lahaa in lagu gudbo 4.5 iyo kumeel gaarka. waxaana xildhibaanadan ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in dalka Soomaaliya muddo dhowr iyo 20 sano dhibaato iyo burbur uu ka jiro. hase ahaatee xildhibaanada ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya looga baahan yahay hay-adaheeda dastuuriga ah inay u hoggaansamaan baarlamaanka Soomaaliya sharciyada uu dejiyo. waxaana xildhibaanadan ay sheegeen inay ka tagi doonaan waqtiga halka sana markii ay soo dhamaato iyaga oo sharciyo wanaagsan u dejiyay baarlamaanka cusub ee la soo dhisi doono. waxaana xildhibaanadu sidoo kale ay sheegeen in loo baahan yahay in ay diyaariyaan dhalinyaro mustaqbalka wax ka qabata dalka Soomaaliya hoggaankiisa. waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi kulanka yeeshay oo ka waramaya aragtidooda ku aadan kulanka ay isugu yimaadeen iyo sidoo kale waxyaabaha kalifay in guddigan golaha dhalinyarada baarlamaanka ee isbedel doonka ah loo sameeyay iyo sidoo kale waxa guddigan uu qaban doono. waxaa la soo gaaray xilli isbedelka aan laga fariisan karin in loo istaago muhiim ay tahay. waxaan ku jirnaa muddada ugu dambeysay ee shaqadeena loo idmaday ayaan ku jirnaa. sanadkii ugu dambeeyay baan ku jirnaa. hal sano ayaan haysanaa. sanadkaas aan haysano waxaa muxuu ahay dhalinyarada baarlamaanka ku jirta magaca ayaa dhalinyarada ah. shaqada waa shaqo la wada leeyahay, odayaashu leeyihiin, gabdhuhu leeyihiin, muxuu ahay ay leeyihiin, cid walba bulshada caadiga ay leedahay. baarlamaanka kaliya aan ku koobnayn, laakiin magaca ayaa dhalinyarada iyaga ayaa muxuu ahaa loogu danaynayaa waay. dhalinyarada Soomaaliyeed baa loogu danaynayaa waay. iyaga ayaa lagu matalayaa waay. waa lagu badbaadinayaa waay. waa loogu halgamayaa waay. ujeedadu waa intaas. waxaan isu xilqaanay anagoo tiimka hadda shirka ku jira arkayseena inaan u sameeyno golo badbaado oo loogu talagalay inuu badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ama isku day kale oo ay xoogga lagu saarayo dhibaatooyinka haysta dalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan dhinaca dhalinyarada. waan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed 20 sano la soo dhaafay inay dhibaato fara badan la soo kulmeen, in waxa dhibanaya ay u badan yihiin kuwa badda ku jira, kuwa dibadda ku xiran iyo kuwa burcadwadeeda ah, kuwa shabaabka ka sii buuxsamaya ama ka buuxa haddaba. sidaas daraadeed waxaan go'aansanay inaanu arrimaha xoogga saarno isla markaasna aanu bilaawno iftiin cusub oo u baxa dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee beesha Biimaal oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Ibraahim Cabdullaahi Cadow, kaas oo ay sheegeen inuu u hoggaansami waayay dastuurka iyo nidaamka u yaalay Puntland. odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in culamaa u diinka aqoon-yahanada dhammaantoodba ay ka soo horjeesteen qaabka uu u maamulayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland. waa kan mid ka mid ah odayaasha oo ka waramaya ujeedada ay madaxweynahaasi maamul goboleedka Puntland ay kalsoonida ugala laabteen. bismillaah, ujeedada waxay ahayd maamulka loo dhisay. horta maamulka ummadda Soomaaliyeed inuu shaqeeyo maamul goboleed uu ka mid noqdaa loo dhisay, uuna ka shaqeeyay dalka gudihiisa. ummadda Soomaaliyeed oo uu matalan uu isku xiro, uu la tashado, uu talada ka waxgeliyo. dee maamulkii inuu la tashadayna waa diiday, inuu dalkii dhexdiisa ka shaqeeyana waa diiday, inuu dadkii doortay uu tixgeliyana waa diiday. sidaas darteed kalsooni lagu noqday. maxaa jira dawlad haddii dadkii dhistay ay tixgeli weyso, kalsoonida laga noqonaa. muddooyinkan dambe waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay isqabqabsi ka dhex jira koox kasta oo ka jirta Soomaaliya, iyada oo tani ay qayb ka tahay burburkii 22 sano ee la soo dhaafay ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya ee isfahan darrada ku dhex abuuray qolo kasta oo si gooni ah u heshiisa. maxamed maxamuud timcade, Universal TV, Muqdisho.